kulan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada muuqaal cusub. Sheekadan waxay ku saabsan tahay dad yow caan ah oo xilli hore dhintay kuwaas oo ilaa hadda sameynaya malaayiin dollar. Waxaa macquul ah inay adag tahay in aad rumaysato in shakhsiyaad dhintay xilli hore ay ilaa hadda sameynayaan lacag malaayiin dollar ah. Haddaba majalada la yiraahdo Forbes ee soo bandhigta dadka ugu qanisan caalamka ayaa waxay soo saartay liiska 13 qof oo meyd ah kuwaasi oo caan ah isla markaana hela lacagaha ugu badan adduunka kadib dhimashadooda. Dadkan waxaa ka mid ah ciyaartooy, fanaaniin iyo dad kale oo majaajilaystayaal ah kuwaasi oo mar hore dunidan ka jiitay balse ilaa hadda uu soo gala dakhli ka badan 10 milyan oo dollar. Wargeyska ayaa bilaabay baaritaanka arrimaha dhaqaalaha ee dadka caanka ah ee dhintay sanadkii 2001 sida laga soo xigtay majalada dakhliga dadka caanka ah ee dhintay sanadkan waxaa kordhay 72% marka loo eego sanadkii 2021 taasoo ah rikoor cusub. Wargeysku waxa uu qiimeeyay tilmaamayaasha canshuurta iibka, wareejinta heshiisyada shatiyada si loo ururiyo liiska. Qiimeyntan ayaa sidoo kale waxaa wareysiyo lala yeeshay khubarada waaxdan ku jirta. Qoraaga ugu caansan ee liiskan ka soo muuqday waxaa la yiraahdaa John Tocqueville. John Ronald Tocqueville waxa uu ahaa qoraal sare oo Ingiriis iyo cilmi yaqaan ah, waxa uu caan ku ahaa qoridda shuqullada qiyaaliga sare. Sidoo kale waxaa aad loogu xasuustaa sheekooyinka The Hobbit iyo Lord of the Rings laga soo bilaabo 1925 ilaa laga soo gaaray 1945. John waxa uu macallin ka ahaa jaamacadda Oxford waxa uu dhintay 1973. Ilaa hadda waxaa socda ayay majaladu leedahay dakhliga ka soo xarooda xuquuqda daabacadda filimada, muuqaalada ay carruurtu ku ciyaaraan iyo sheekooyinkiisa kale ee ku saleysan qiyaaliga. Shakhsiga labaad waa xidigii kubadda kolayga ee looran jiray Kobe, saamigii uu ku lahaa shirkadda cabitaanada isboortiga ee Body Armor ayaa waxay iibsatay shirkadda Coca-Cola isagoo oo faa'iiday 400 milyan oo dollar. Kobe waxa uu ahaa ciyaartooy kubadda kolayga ah oo Mareykan ah, waxa uu shaqadiisa ku qaatay in ka badan 20 sano. Waxa uu ka tirsanaa kooxda la yiraahdo Los Angeles ee ururka kubadda kolayga ee qaranka Mareykanka. Bishii Agoosto 23, 1978 ayuu ku dhashay Philadelphia, laakiin waxa uu dhintay 26 bishii January sanadkii 2022 kadib markii diyaaradii uu saarnaa ay ku burburtay gobolka California. Waxaa kaalinta saddexaad ku jira fanaankii caanka ahaa ee David Bowie. David ayaa waxa uu ahaa seediga Soomaalida maadaama ay u dhaxday Iimaan Cabdulmajiid balse qoyskeedu ay ula baxeen Sahra Cabdullaahi Cabdulmajiid oo ahayd gabar Soomaaliyeed taas oo 70meeyadii ka hajirtay Soomaaliya ka hor inta aysan la midoobin xidigan. David waxa uu ahaa heesaa Ingiriis iyo jilaa hormuud ka ahaa mihnada muusiga. Waxaa lagu tilmaamay mid ka mid ah fanaaniintii ugu saameynta badnaa qarnigii 20aad. Majaladu waxa ay leedahay fanaankan waxa uu soo xarooday lacag gaaraysa 250 milyan oo dollar sida lagu sheegay liiska. Sidoo kale liiska waxa ku jira heesaagii caanka ahaa ee la oran jiray Michael Jackson kaas oo helay intii uu qabriga ku jiray lacag dhan 7 milyan oo dollar.